de waa waxyaabaha haddii taariikh la rabo been in lagu dul dhiso way iskhilaafaysaa way isqabanaysaa taariikhda somaliland waxay ku dhisan tahay been kow waa runteed beesha reer xisaab waxay la gashay heshiis boqortooyadii annagu lamaanaan gelin waana lagu soo duulay weliba iyagaa noo soo raacay oo ingiriisku ciidanka uu keenay waa yaraa ciidamada nala dagaalamayay ee dadka iyaga laayay ciidankii laga qortay reer xisaab bay ahaayeen cidda marka la gumaystay waa annaga ilaahay hadduu ku roon yahay marka qofku hadduu isku raali geliyo warqad baan beri seexay oo la ima gumaysan isagoo la gumaystay dee iyaday u taallaa haddana dee haddaan lagu gumaysan yaad xorriyad u qaadatay yaad ka qaadatay 20 sana aniga la ilaynayo ingiriis ilaynaye ma heshiis baan kula ahaa inuu 20 sannadood dadkayga xasuuqo 70% uu dilo caqliga keenaya waxaasi waa marka inaanaan meel laba isaga mid ahayn siyaasi taariikh ahaan iyo xaqiiqooyinkii iyo dhacdooyinkii taasaad ku garanaysaa 20 sannadood aniga maxaa la ii dilayo ingiriis ii dilayay haddaan heshiis la galay